soo dhawaada ninkan iyo naagtan u jeedin waa shaqaale oo meeshan ay ka wada shaqeeyaan kadib ninkii kambanigan ay ka shaqeynayaan iska lahayo inta u yimaado cunadii ay cunayeen qashinka uga dara wuxuu ku dhahaa idinka maxaa ninka qaldan meeshan iska fadhiisin waa iska sheekaysanaysan shaqadiina maxaa qabso weydii midkana wuxuu ku dhahaa aniga shaqadeedii waa soo dhameystay waraaqadana waa tan miiskii saaranta waa fiiri kartaa laakiin ninkan booska ninkan waraaqadii uu soo diyaariyo intuu yaanyo soo qaato korka uga daadaadina wuxuuna ku dhahaa hadda waxaan u maleynayaa in ay shaqo ku taalo oo waraaqadii waa ka heliyay mid cusub soo sameey asna waa kanaahe muxuu sameeyaa waraaqadiisa oo iska qaadanaa meeshiina isaga taga midaan kale waxay taagan tahay aniga cunadeedii waa soo diyaarsada oo meeshan ii saaranta markii aan dhameystana shaqada dib ugu laabana laakiin isagu ma ka yeelayo cunadii ay cunayso intuu soo qabto boorsadii ay wadato ugu shubaa kadib intuu sii wuxuu dhahaa gurigaaga u qaado haddana waa inaad baxdaa oo shaqadaada dib ugu laabata maalin kale labadooda iyagoo meeshan iska fadhiyo oo iska shaqaysanaya ayaa waxa u imaanaya nin delivery oo cunto wado ninkii booskiin ahay aawo weydiina midaan markay aragtay in ninka booska cuno loo wado waxay dhahaysaa anigana wuu noo diida asigana tartiibkiisoo dalbana kadib midkii ay isla shaqaynayeen wuxuu ku dhahaa aniga qorshe noo hayo midkii deliveryga ahay oo cunada keeno wuxuu u sheegaa in ninkii booska ahay oo maqan yahay haddana uu iska bixi karo cunadana uu meeshan iska dhigi karo markii uu ninkii deliveryga baxay alaabtani waxay kasoo bixinayaan meeshan gadaale kadib ninka booska cunadii uu lahay ugu darayaan xoogay kadibna midkii booska ahay waa kana wuu imaaday kana wuxuu ku dhahaa waqti wanaagsan imaatay meeshan waxa ku taala cunadaadii waa qaada kartaa asna waa kanahay cunadii intuu hortooda ku soo baxsado weliba hortooda ku cunaa intaas kaliya maahane wuxuu u sheegaa inay cuntadan aad u macaan tahay laakiin xoogaa markii uu cunada cunaya caloosha laga qabanaa ayagana waxay ogaanayaan inuu qorshoodii uu shaqeeyay kadib isagoo suuxsan oo dhulka ku dhaca ayagana wanaagii u sameynayaan oo ambalaastii ugu caayaan ambalaastina waa tanahay uu soo gaaray ayaguna markii arkaan inay ninkan ka taalo wax walba u sheegayaan waxay ku dhahayaan cunada anaga wax ku darno waxaan rabnay inaan cashar ku dhigno intuu soo kaco wuxuu ku dhahaa markii aan soo fiicnaado shaqada waan ka bari doonaa laakiin ninkii dhakhtarka ahay oo ambalaasta la socdaa wuxuu u sheegaa inaysan kuwan dili rabin oo ay badbaadiyeen say ii badbaadiyeen oo weydiina wuxuu ku dhahaa caloosha waxaa ka qabtay cudur ayagana cunada waxay kuugu dareen sun dilaysa cudurkii aa caloosha ka qabtay xanuunka caloosha iga haya miyaa taqaaniin oo ayagii weydiina haahay ku dhahayaan waxaan ogeyn inaan cudurkaas qabta anigana waa ku daaweynay kadib midkii dhakhtarka ahaya intay gees ula baxaan waxay dhahayaan runtaa miyaa ninkan ma badbaadin hadda war waxaa badbaadiseen malaho ku dhahaa sunta aan ninkan siiseen qof ma badbaadisa ee dadkii disha anigana sababta aan beenta u sheega waxaa raba keliya in aan shaqadiina idiin badbaadiyo ee ogaada waxa sun waaye ayaguna dhakhtarka u mahadcelinayaan muuqaalka taasuka kaa leegno saar soo dhawaada naagtan uurey leedahay waxay rabtaa inay gurigeeda isaga tagto iyadoo ninkeeda wax dhan u sheegin waxa weydiinaya inay u sheegto sabab cad oo ay tegayso laakiin iyadu waxay ku dhahaysaa iga wax dhan ku sheegayay isla markaasna qayladooda waxa ku soo baxaya isaga walaalkiis markii uu weydiiyay waxa dhacana wuxuu ku dhahaa labadeena la isheesanahay soo dhaxgelin markii ay baxdo walaalkiis wuxuu ku dhahaa iska daa midaan xaa u celcelinay inay baxdaaba fiicane marka hore hadalkiisa ma yeelin laakiin ugu dambeyn markii wax badan u sheega wuu ku qancay dhinaca kale midii soo carareeda waatana iyadoo meeshan fadhida oo weliba murugaysan xooga ay fadhida waxa u imaaday midaan saaxiibadeeda kadib waxay weydiiday boorsan ay wadatid maxaa waay safar maa ku soo baxay tahriibi waxay taagantahay hadeertan aniga gurigeyga waa ka soo tegay mana haysto meel kale oo aan aado saaxiibadeedna waxay ku dhahaysaa sidaas haday tahay oo aadan haysan meel aado aniga gurigeyga ii soo raac laakiin marka hore waa inay ii sheegtaa waxa gurigeyga ugu soo tagtay iyo waxa kugu dhacay kadib iyadu waxay bilowday inay uga sheekaydo sheeko ayaan hore ku dhacday sheekadaasna waxa waaye iyada iyo ninkeeda walaalkeed inay si qarsoodiya iskula socdeen kadib isagu intuu aniga maalin meel igu balimiyaa waxaan u sheegay inaan rabo ninkeyga inaan wax dhan u sheego arrintan aan rabo inaan soo gabagabeeyo wuxuu igu dhahay haddii sidaas tahay anigana waa baxa walaalkii aan u tagaa waxaan u sheegaa uurka aa wado inuusan asagu dhalin intaasna wuxuu ii raaciyay guriga markaan tago inaan alaabtii dhan soo xirxirto kadib balaa su'aal iska soo baxo midaana markii ay dhageysatay sheekada saaxiibadeed ku dhacday intay soo waday dib waxay ugu soo celisay guriga ee marka hore ka soo carartay waxay taagantahay haddii aan sheekada uga sheekay haddii uu cafi waaye ka waran laakiin saaxiibadeed waxay u sheegaysaa haddii ay arrintaas samey weyda inaysan jirin waddo kale oo furan iyo meel kale iyo aado iyaduna jisaarad ma noqonayso saaxiibadeed waxay uga mahadcelinaysa sida wanaagsan ay ula shaqaynaydo albaabka markay gargaraacaan midka intuu ka soo baxo aad u farxa markuu arkay in xaaskiisa dib ugu soo laabatay waxay u sheegay inay rabtay inay kala hadasho arrin aad muhiim u ah isla markaas isaga walaalkiisa intuu meesha soo gaaro iyada wuxuu ku dhahaa meesha maxaa ka soo doonta sooma lagu burin mise waxaad rabtaa inaad wax noo sheegto annaga dhan waa ku dhagaysanaynaa haddana waa noo sheegi kartaa waxaad rabtid inaad noo sheegto ugu dambeyn way soo wada baxday iyadoo midkan u sheegaysa in uurkan ay hadda wado aysan isagu lahayn taas beddelkeeda oo walaalkiisa leeyahay isla markaasna labadooda waxay bilaabeen inay isaga hortiisa isku dagaalaan waxay u maleynaysay inuu iska cafi doono markay arrinta dhan u sheegto laakiin taas beddelkeeda midkan wuxuu go'aansaday inuu labadooduba booliska u waco muuqaalku intaas ku ekaada halkaas oo gaarta leegnosa labadaana u jeediin iyagoo arooskooda joogo sawir iska galgalaya ninka waxa uu imaanaya mid ay ayaan hore saaxiib ahaa jireen isaguna markuu arka arooskiisii intuu iloobo wuxuu ku dhahaa ma aamini kari arooskayga maanta inaan kasoo qayb gashay aroosadana midoo saaxiibadeeda intay u timaadee waxay ku dhahaysaa ninkan mujeedidoo arooskaaga wuxuu ku ballamiyey mid ay saaxiiba yihiin ka waran iyaduna intay xanaaqday waxay bilaabaysaa inay birtan ay dhulka ku garaacdo kuwaanoo soo jeesteen markuu weydiiye waxa ku dhacana waxay u sheegaysaa inuu iloobo shaqadii u taalay oo ahayd inay keega wada jaraan kadib waxay bilaabayaan labadooda inay keega si wada jira u wada jaraan xoogaa kadibna saaxiibadeeda intay u timaadee waxay ku dhahaysaa labadaas muujeedaa wuxuuda saaxiibtinimo way dhaafeen wax kale ka dhexeeyo mar labaad intay xanaaqday keegii ay gacanta ku heda midaan si kasta ugu daadinaya iyadoo ka dhigaysa waxaan inay shil yihiin ninkeedu intuu ka yaaba midaan siday u dhaqmayso wuxuu ka codsanaya inay meel gees u wada baxaan si ay wada hadlaan wuxuu ku dhahaa qoftaana u jeeday 5 sano maan is arkin saaxiibo hore aan ahnay adiga maxaa waay maxaa noo qasaysaa laakiin iyadu waxay u sheegtay waxaan ay labadoodu wadaan inay saaxiibtinimo dhaaftay ugu dambeyn wuxuu ku qanciyay waxaas ay sameynayaan inay ka keentay kala fogaanshaha ay waqti
waqti dheer kala maqnaayeen mar kale midaan waxay aragtay midkii ay saaxiibada ahaayeen oo masquul ku jira maadaama ay wixii saaxiibtinimo ku ekeen masquusha ugu soo dhexgeliyay isagana waa ganaayo waxa weydiinaa sababta ay meeshan u timaaday maadaama ay tahay masquusha ragga oo kaliya aroosada mar kale saaxiibadeeda intay u timaaday waxay ku dhahaysaa arrintaas sidee macquul u tahay aniga ma ogolaa lahayn ninkii inuu masquulaha la galo naagaha kale intaasna waxay u raacinaysaa inaysan iyadu jaceylka aaminsaneen maadaama ay dadka dhan khiyaanadii ka bateen iyaduna markaan go'aan cad intay qaadatay waxay soo wadanaysaa ninkan oo xafladda joogay waxay ka codsatay maadaama la gaaray xilligii la dheeli lahay inuu la dheelo isaga dhawaa kalahay oo la dheelaa xoogaa kadib midka aroosi lahay oo ordaya intuu u yimaado wuxuu weydiinaa waxa ka qaldan iyo waxa ninka kale la sameynayday laakiin iyadu jawaab dhan maysan siin midkaana waa kana qoftii oo la dheelaya isagana ka tagtay intuu soo baxo midii isku dirka badneed u yimid maadaama uu iska gaad ku hayo laakiin iyadu si xun u fiirisay midaan intay soo baxdo midkii arooska ay sii ordaya intay ka daba timaaday ay soo wada baxay wax walba u qabtana wuu u sheeganay midaan way dhigeysanayday kadib intay soo orday makarafoonka qaadatay dadka arooska soo qayb galo dhan waxay u sheegaysaa inay meeshan ku kala tagaan uusan aroos ka socon laakiin isaga makarafoonka intuu ka qaado dadka wuxuu u sheegaa inuu xaaskiisa u qaadayo hees oo u soo diyaariyay iyaguna ay dhageystaan heesna markii uu qaadayay midaan ay tay maqashay meesha soo gaaraysaa waxayna u sheegaysaa inay ka dhamaatay ay labadooda isla noolaadaan laakiin iyada waxay dhahaysaa anaga ka daba tegayo waan la soo hadli doonaa intay ka daba timaaday waqti badan oo ay hadlayso ugu dambeyn waxay ku qancinaysaa inay waqtigeeda sugato labadooda oo si wada jir u socda midkaan markuu arko wuxuu taagan yahay indhahayga waxaan ku arkaya ma aamini karo xafladii markii ay dhamaato ubaxani gadaal u tuuraysaa si uu u qabsado qofka iyada ku xigo aroosaya saaxiibadeedana qabsanaydo isla markaasna waxay aaday midkii iyada isgaadgaadka ku haayay muuqaalkana intaas ku ekaayay hadda halkaas soo gaarta leegnoosa soo dhawaada gabadhan yarta uur ay leedahay mana rabto arrintan in hooyadeed ogaato maryo badan intay soo qaadatay caloosha ku xiratay laakiin sarwaalkii uu xirmi waayay xoogaa ay fikiraysan qorshe ku soo dhacay laabtoobkeeda intay soo qaadatay waxay ku qoraysaa sidee uurka la isaga baabiyaa kadib daawooyin u soo baxayo waxay ku fikiraysaa inay hooyadeed weydiisato lacag ay buugaag ku gadato markii ay sidana ay daawadan ku soo gadato isla markaas waxay maqlaysaa hooyadeeda dhinaceeda u soo socoto magaceeda ku qaylinayso albaabka markay ka furto waxay tusinaysaa inay u soo gaday dhar ay ku riyo jirto inay hal mar le gashato way u dhiibtay si ay isugu tijaabiso laakiin midaan walwalka weyn haysta arrintan intay u timaadee waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin aan waqti dheer kaa qarqarinayay iyadoo aan hadalkii u sheeginay suuxday hooyadu gabadheeda sidii u soo wadana waxay keentay dhakhtarka waxay weydiinayeen gabadheedu ma xanuunsan tahay maxaa ku dhacay hal mar sidii u joogtayba dhulka ku dhacday dhakhtarku wuxuu ku dhahaa xanuunka ka sheekeynaysid maxaa waaye gabadhaada uur ay leedahay waana 6 bilood kadib midaan hadalka markii ay maqasho maalinay joogtay habeen ku noqon rabtay iyaduna markeeda way soo xirabtay xoogaa ay yaabaneed midaan oo sariirteeda iska jiiftay inta u timaaday hal xabo dharbaxsha u dhiibay iyadoo si saa'id ugu qaylinaysay waxay weydiinayeen dhakhtarku hadalku sheegay maxaa waaye iyo uurka waxay taagan tahay arrinta marar badan ay isku dayay inaan kaala sheekaysto laakiin adigu markii aan ku sheeg magaba waa iga celinaysay sidaas darteed waxaan go'aansaday mar dambe inaan arrintan kaala sheekaysan ugu dambeyn arrinta sideedaba u dhaafay buuqoodu saa'id markii uu noqdo dhakhtarku midaan intuu yimaado wuxuu dhahaa soo bax wax yar inaan kula hadlaa rabaaye isbuuc kadibna gurigooday ku soo laabteen oo isbitaalka way ka soo tageen laakiin midaan weli maysan dhalin midaan hooyadeeda waxay ku dhahaysaa haddii ay arrintaa ku niyad jebisay oo aad rabtid inaad guriga kaaga tago caadi waaye laakiin midaan maadaama ay hooyo tahay waxay u sheegaysaa arrintan inaysan marnaba niyadeeda ku soo dhicin bilooyin kadib midii yareed way dhashay kuwaana waxay isku diyaareen inay dhakhtarka aadaan laakiin hal mar albaabka lagu soo gargaraacay markii albaabka furto wuxuu noqonaa midkoo sigaar cabayo wuxuu taagan yahay waxaan rabaa inaan wato cunug yarka dhalay iyo xaaskeyga laakiin hooyadu waxay ku dhahaysaa aniga hal mar xitaa ma ku arkin markii gabadheedu uurka lahayd wuxuu u sheegaa inuu ugu dambeyn u yimaaday oona rabo inuu qaado mas'uuliyadda xaaskiisa iyo cunugooda yarka haddana uu rabo inuu wato midaan yar waxay taagan tahay caadi waaye hadda hadduu yimaado diyaar waxaan u nahnay inaan raacno hooyadu gabadheeda waxay ku dhahaysaa arrintan ma ka joogtid midkaan cabto inuu eegam u jidido laakiin ugu dambeyn way u ogolaatay markay aragtay midaan inaad hadal dhanka maqlaynin kadib intay is soo raaceen oo wuxuu keenay meeshaan kor dhan ka furan wuxuu ku dhahaa hadda kadib meeshaan waa seexad doontaa gurigaaga waaye waxay u sheegaysaa inay hooyadeed u dirayso locationka meesha ay joogto sida ugu timaado markii ay rabto laakiin wuxuu ku dhahaa aniga mariba hooyada buuqeeda inay gurigayga iga barato ee keen taleefanka hadda kadib taleefon isticmaali doontid intuu hore u soo wado wuxuu keenay meel uu hore u seexan jiray oo isugu jirta jiko iyo meesha dharka lagu dhaqo wuxuu taagan yahay meeshaan anigaa seexan jiray laakiin hadda kadib idinkaa idiin deysta waa seexan kartiin waxay weydiiday oo hadda ma waxaad rabtaa gabadhaada yarta inay meeshaan seexato kulaha war aniga markii hore derbiyada seexan jiray haddana iyadoo hadda halkaan seexato wax dhan mu arkayso markii uu ka tagay gabadheeda waxay ku dhahdaa ma raba inaan meeshaan seexato waxaan rabaa inaan ku noqdo hooyo wanaagsan sidii hooyadii aniga ii tahay ugu dambeynna waxay qaadatay go'aan inay meesha dhanba isaga tagto guriga hooyadeed markii ay timaado marar badan albaabka garaacda laakiin qof dhan ma ka furaayo waxay u maleynayday inay hooyadeed albaabka ku dhagaysanayso laakiin iyadoo bannaankii ku maqneed waxayna ku faraxday inay hooyadeed mar kale dib ugu soo laabatay muuqaalkuna intaas u ahay hadda halkaas soo gaarta like noo saar